الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الهانتينبا meel waliba dunida daafayga dacaladeeda ka joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo nagu talagalnay barashada ama la tisqaadka hantisahal. Hantisahal waa system management loogu talagalay inuu ka caawiyo ganacsatada xisaabaadkooda, ha ahaato xisaab xidhka iyo sidoo kale la socodka alaabaha, faa'iidada iyo kharashaadka ganacsiga kaa soo gala. waan ka warqabnaa dhammaanteen hantisahal sababta aad u isticmaalayso ama sababta aad akoonka uga furatay inay tahay inaad ku maamusho ganacsigaaga guud iyo mid shaqsi ahaaneedba. hore waxaan usoo baranay dashboardka guud iyo qaabka hantisahal loginka loogu sameeyo ama marka akoonka lagu soo siiyo aad usoo furanaysid. maanta haddaba update badan ayaa hadda madaragteen lagu soo daray systemka. annagoo soo koobayna maanta waxaan baran doonaa qaabka marka koowaad loo geliyo alaabaadka systemka. matalan dukaankaaga waxaa yaala kaba soo qaad hadda dukaankani inuu yahay electronic telefoonada gada, telefoonada iibiya. electronigaas waxa uu keenay safarkii ama systemkii ayuu furtay oo wuxuu rabaa alaabtiisa u taalla inuu gashado systemka siduu stooggiisa oo u ogaado. maanta haddaba muuqaalkan keliya waxaan ku dul maraynaa qaybta alaabta. marka hadda waxaan ka isticmaalaya anigoo computer, laakiin haddaad telefoon ka isticmaalayso hoosta ayaad ka arkaysaa qaybta alaabta ay ku qoran tahay. kadib alaabta ayaad tegaysaa. alaabta marka aad tagto waxaad arkaysaa qaybtan inay ku taal horta waxaa noo yaalo xabad iphone 13 pro max oo muuqaalka hore ku sameynaynay. haddaan idhaahdo ku dar alaab cusub waxaa kuu soo baxaya foomkan ayaad buuxinaysaa. haddaba foomkan waa magaca alaabta. magaca alaabta waxaan odhanaynaa A21S ayaaban keenay. sharaxaad kooban ayuu ku leeyahay, waad iskaga tegi kartaa. halkani waa muhiimka ugu weyn. halkan waxaad gelinaysaa calaa xabad inta ay dubi kaaga taagan tahay. calaa xabad inta ay dubi kaaga taagan tahay ayaad xagan gelinaysaa. matalan A21S-ka dubay waxaa laga siiyaa kaba soo qaad 21,000 waa tusaale 21,000 baa laga siiyaa. adigu Djibouti marka aad alaabtaa keento calaa xabad waxaan ku iibinayaa hadduu ilaahay idhaahdo 24,000 ayaan ku iibinayaa. qiimaha ugu hooseeyo in la dhaafi karin weeye halkan waxaa ku qoran qiimaha ugu horeeya in la dhaafi karin. marka waxaa jira alaabta inta aad soo siisatay qofka markaad bilowga kuu imaado waxaad kula gorgortamaysaa 24,000, laakiin qiimaha ugu hooseeya in la dhaafi karin waa 23,500. marka qiimaha wixii ka hooseeya systemku maba ogolaanayo in lagu iibiyo oo qofka la idhaahdo 23,000 baan wataa xataa ma ogolaanayo in systemka la geliyo lacagtaas, waayo khasaare adiga kuugu taagan tahay oo adiga wixii faa'iida kaa soo galaysa saas oo kale ayaad gelinaysaa. qaybtani waa stock haddaba telefoonkan aan haynay A21S imsa xaba ayaan keennay. waxaan keennay 10 xaba ayaanu keennay. mini stock marka la idhaahdo waa calaa xabad nacam kartoon iskugu jiraan. markan oo kale waxaan odhanayaa waa 10 xabo waana kartoon. okay markaan idhaahdo ku dar alaabtaas wuxuu ii soo saarayaa A21S qiimihiisu yahay 24,000 stock inta ka taalna ay 10 xabo tahay. waa 10 xabo waa stock hoose caadiyan marka la eego 10 mir markaad alaabta keentid way hooseysaa oo wuxuu ku sheegayaa iminkan waxaa ka yaalaan nidhi 20 xabo oo uu wanaagsan yahay, laakiin kan wuxuu kuu sheegayaa calaamada ah uu hooseeyaa stockani uu hooseeyaa. okay dhib ma lahan waxaan odhanaynaa alaabta qaabkaas horta lagu soo daraya. hadda mar labaad eegno waxaan gelinaynaa matalan waxaan odhanayaa redmi 11 Pro qiimaha halkaa laga soo siiyo waa 27,000. qiimaha xaan ku siinayna waa 32,000. qiimaha ugu hooseeya in la dhaafi karinna waa 9. qiimaha ugu hooseeyana waa 30,000 oo biila dhex 30,000 oo biila. okay stock inta ka taala waa 15 xabo marka la sugayo waa 15 xabo. okay waxaan dhahayaa ku dar alaabta. okay
halkan waxaa noo taalla iyadana 15 xabo. Stock ugu hooseeya wuxuu ku leeyahay waayo kan ayaan ka haynaa 20 xabo oo kuwan kalena waa calaa 10 iyo 15. 20 wixii ka sarreeya odhanaya stockgan wuu fiican yahay. Okay, waxaan halkaa ku arkaynaa alaabtii cusbayd sida loogu darayay. Haddaan u imaado alaabtani halkee bay imanaysayo sidee baa loo iibinayaa in xaggan ugu alaabtii in waxa kusoo darayso oo liiskan ayaad u samaysanaysaa alaabta ku taalla. Okay, dhanka iibka haddaan imaado, dhanka iibka markaan imaado oon idhaahdo iib cusub, waan iman doonaa xaggan muuqaal ka samayn doonaaye haddaan raadiyo alaabtii iminka matalan 21 ma ku qorayo wuxuu soo saarayaa 21 halkaa markaan geliyo wuxuu soo saarayaa Avantia S oo 10 xabo ka taalo qiimihiisuna 24,000. haddaan ku dhufto oon xaggan ka bedelo oon idhaahdo 22,000 22 hoosta markaad eegto muxuu ku oranayaa qiimaha ugu hooseeya la siin karo walaal waa maad aragteenay 23,500. anaa waxaan idhiba 23,000 biila u diidayaa ma ogolaanayo oo maaragteenay ma yeelaya dee wuxuu oranayaa 23,500 waan halkaa geliyaa. Okay, 23,500 markaan meeshii geliyo 23,500 markaan meeshii geliyo wuu ogolaanayaa. laakiin haddaan xataa 23,400 geliyo wuu diidayaa wuxuu leeyahay 100 baa hoos u dhacaya oo ma yeelayo systemka xataa ma ogolaanayo in lacagta la geliyo. qiimaha ugu hooseeyana khasaare adiga ku keenayn ayaad adiguna gashanaysaa. Okay, waa magaca macmiilka xaan gashanaysaa saad u ogaatid macmiilkaadba kugu soo noqonaya. qaybtana waa qaybtii lacag bixinta oo Wafi, Kagbay, Diman, Ebel. qaybtana waa qaybtii doolarka ama lacagta Ethiopia ama Djibouti franc. Okay, haddaan dhahdo lacagtaas Wafi baa lagu qaaday diiwaangeli iibka. hadda uma soconno qaybtan sida alaabta loo iibiyo laakiin waa intusayo kiyata. sidoo kale waxaan ku soo darnay hadda systemka qaybta celiska. waayo waxaa jirta telefoonada badanaa dee elektronikada lagu soo celiyo ayaa jira. markaa systemka qaybta celiska ayaan kusoo darnay isagana muuqaalisan ka samayn doonaa. waa update-ka hadda aanu kusoo darnay systemka. haddaad wax kale ka tabanayso ood leedahay waxaasaa ka maqan systemka uuna u baahan yahay waad nala soo wadaagi doontaa waana ku dari doonaa insha allah. aad baad umahadsantihiin intaan ku kulmana muuqaalka muuqaal lamida. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.